فنان أمين أحمد وددك تيك توك استعماله يقانان مقع جعيلو iyo walaashiisa naxwa asal Axmed waxay kamid yihiin dhalinyarada maalmihii ugu dambeeyay ka caanbaxay aaladan TikTok Maxamed iyo walaashiisa naxwo waa walaalo ku nool inta u dhaxaysa miyiga Balihowde iyo Lajida oo ka tirsan degmada Xareela Maxamed oo loo yaqaan Jaceylo iyo walaashiisa naxwo waxay ku soo caanbaxeen dhaantooyinka iyo hidaha iyo dhaqanka oo inta badan ay soo galiyaan hal ciwaan oo TikTok oo isla isticmaalaan waxaana ku xiran bartooda TikTok in ka badan 200 oo kun oo qof magaca TikTok isla isticmaalaan waxa uu qoran magaca Jaceylo oo naxwo walaalkeed Jaceylo 2 bilood ka hor ayuu dalka Kenya ka yimid waxa uu jeclaystay inuu dalkiisa ku laabto waxaan hadda uu ku nool yahay meel miyi oo aan lahayn koronto iyo sidoo kale internet xawaare sare leh waxaana meeshaasi ay hoos tagtaa degmada Xareela inta badan waxa uu la kulmaa caqabado aad u kala duwan oo ka haysta dhanka ay wax soo gudbinta waxyaabaha sida weyn oo dhibaatada uu qabo waxa kamid dhanka ay internetka sidoo kale meesha ay ku nool yihiin waxa aad ugu yar dhanka ay korontada taleefanada waxa ay geystaan magaalada si ay u soo jaajareystaan sidaas ay tahayna kama daalaan inay dadka madadaaliyaan oo ay wax u soo gudbiyaan sida dhiiga jirkayga dhaxaadayo dhimirkayga damaysay ku dheereeran tahay